iyadoo maalmihii u dambeysay duqeyn xoogan ay ku socotay jasiiradda Kudaa oo ka tirsan jasiiradaha gobolkan Jubbada Hoose isla mar ahaantaana kamid ah goobaha istiraatiijiga ah ee ku yaala gobolka Jubbada Hoose ayaa misna saaka 7 subaxnimo waxa u suurta gashay ciidamada maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika ee AMISOM in ay gacanta ku dhigaan jasiiradda Kudaa ee koonfur galbeed Kismaayo kaga beegan afayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Saraar Maax oo markaasi war-saxaafadeed ka soo saaray la wareegida deegaankaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay si nabadgelyo saaka 7 aroornimo ay kula wareegeen jasiiradda Kudaa oo kamid ah jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose sidoo kale afayeenku waxa uu tilmaamay in halkaasi 3 maalin ee la soo dhaafay duqeyn xoogan ay ka socotay oo halkaasi kooxaha nabadiidka looga gubay xarumo military oo ay ku keedsan jireen hubka sida uu sheegay afayeenka maamulka sidoo kale duqeyntaasi ayaa waxa lagu gubay gaadiid dagaal oo ay lahaayeen kooxaha nabadiidka ee dhawaanahanba dhibaatooyin kala duwan ku hayay shacabka ku dhaqan jasiiradda Kudaa ee gobolkan Jubbada Hoose jasiiradda Kudaa oo leh takada macmala oo gaadiidka baddu ay si fudud ugu soo xiran karaan ayaa noqonaysa isha ugu muhiimsan ee dhaqaale ee laga wareegay ee u dambeysay kooxaha nabadiidka iyadoo halkaasi ay kooxaha nabadiidku ay dhibaatooyin kala duwan uga geysan jireen shacab ku dhaqan deegaankaasi حاكم حكتي ساكا وبريين القبطي مال مهم رنتي أو استراتيجية أو اللي هذا مارتي كودا وحيد من على رنتي الشباب غربنا نكسو جريجلي ديجان بدنا بلارنا كفر لذا رنتي خسارة بدنا ملوك جستي وحال جل أنت أي وقت جاي ماشي الأرض هذا وسجال روح هذا مشاع هو بعوض قبطي إلى طولان كوريا وسويج لكوريا من وجهه لو يغني AK-47 ضاع فربنا ودوري لواتن وجهه لصدق لواتن كان جديد باجر وقبطي يميل يقولون تو واجرا sidoo kale waxa afayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Saraar Maax uu tilmaamay la wareegida deegaanka ama jasiiradaasi Kudaa in ay markaasi bilow u tahay howlgallo baaxad weyn kuwaas oo ka dhici doona meelo badan oo kamid ah dhulka Jooraha ee koonfur galbeed magaalada Kismaayo sidoo kale waxa magaalada Kismaayo gudaheeda laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan iyadoo aad loo adkeeyay ammaanka magaalada Kismaayo waxaana la arkayaa gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale ciidamada amniga oo markaasi kuwa ku sii socda deegaanada ka baxsan magaalada Kismaayo si markaasi ay u qaadaan howlgallo la mid ah kuwii ka dhacay jasiiradda Kudaa iyadoo howlgalkii ka dhacay jasiiradda Kudaa ay si weyn u soo dhaweeyeen shacab ku dhaqan jasiiradaasi aadan maxamed salaad raadiyaha iyo telefishinka qaranka magaalada Kismaayo